soo dhawaada dhamaan saaxiibayaal mowduuc muuqaalkan waxaan rabaa inaan kugula wadaago ciyaarihi xalay toole la ciyaaray dabcan ciyaartan maana soo boosti gareynin laakiin dabcan marka wiininka qaatay waxaa soo dhigay telegram channelkayga waxaa jiray dhalinyaro fara badan oo dabcan ii soo qoray maxaa ciyaarta koor usoo dhigi weysay maadaama Nantes ayadoo red card qabto half cambio dhan ee ku dhameysatay double chance welibana 90 daqiiqo 40 daqiiqo lagu daray gool laga dhaliyay goolka far uu diiday offside maadaama uu ahaa kadib waxa u balan qaaday dabcan in ciyaar kala sameyn doono ciyaarta kale waxa sameeyay dabcan kaliya iyadoo 15 daqiiqo socoto waana sii sheegay oo in tactical uu jiro soo marka asoo boosti gareyn doono wax yar kadib oo isha ay ku hayaan telegram channelkii Ibros Time 25 ay ku qoran tahay in dabcan al-ittifaq ay heli karto double chance sidoo kalena Inter Milan ay badin karto soo marka advantage-ka ugu horeeyo waxa ka helnay kooxda al-ittifaq oo dabcan red card loo qaatay welibana dabcan Wijnaldum iyo game adag uu ahaa goolka bareejada ay heleen automatically game-ka halkaas ku joojiyay Inter Milan aaday Inter Milan hal iyo eber mareysay hal iyo eber ayadoo mareysa dabcan laga barbareejiyay oo hal iyo hal ciyaarta laga dhigay gool dabcan aad u qurux badan kala hogno wuxuu ka togtay dhaxda 2-1 ay noqotay 3-1 ay noqotay 4-1 ay noqotay 5-1 ayadoo mareysa dabcan ay gool soo celiyeen soo marka automatically 6 games oo caawa dabcan soo dhigay dhamaantoodba successive won noqdeen ciyaartan waa soo dhigay dabcan telegram channelkiga boqon karta Ibros Time ku qoran hadii aad ku qorto calaamada ama qoraalka hoos kaaga soo baxayo calaamada Gmail Ibros C25 na dabcan telegram channel ka heli kartaa soo marka hadii ay xiiseynayso shaxyaasha ama tactics-ka ama waxyaabaha aan soo gudbiyo just as a tactics oo soo gudbiyo ama as dhigi karto waxba ka faa'iideysa channelkii telegram channelka ku soo biri kartaa sidoo kale waxa jirtay ciyaar aad u xiiso badan oo dabcan muxuu ahayd ciyaareen muxuu ahayd Frankfurt iyo dabcan kooxda kale Frankfurt gool la hormartay waa laga bareejiyay gool kale dabcan hadana la hormartay waa laga bareejiyay guuleen u qalmeen dabcan waana faahfaahiyay mar walbo ciyaaraha lacag dhiganayso waxa aad muhiim u ah boqolkiiba hal ama boqolkiiba 10 qasaaraha inuu noqonayo halka kooxda boqolkiiba 90 ay qasaarayso tusaale hadda league title-ka lagu tartamaya hadda Inter Milan oo kale game-kan league title-kii aad ugu tartamaysa Roma dabcan koox ahaan dadka qaar waxa laga yaabaa in uu Soomaaliyan Roma dabcan waa laga soo badinay laakiin iyada naftirkeedu ku qasbaneed inay badiso laakiin tabarta halkaas dhigto Inter aad ugu awood sheegatay game-kan qofkii game-ka daawadana dabcan uu arki karo oo aan dabcan half cambi markii la maray game-kan kale al-ittifaq wax ku yara mashquulay oo 2-1 asagana ahaa kadib marka soo laabta waxa arkay ciyaarto 4-1 soo marka sometimes waxa dhacayso kooxaha in advantage ay ka helaan league markuu halkaan marayo koox walbana ay u dagaalanto dabcan in dabcan aysan kooxaha qaar top 4 u dagaalamayo Europe League Champions League qaar relegation ka cararayo dabcan Malen aad u dadaalay Roma ciyaaryahanka xogaa dabcan aad ugu dhaqdhaqaaqayo kamid aha laakiin goolaha Jan Sommer dabcan aad u badbaadiyay kooxda Inter Milan oo gool far badan dabcan ka save gareeyay dhamaan isku soo wada dub ciyaartii halkaas ku dhamaatay 6 kooxood oo soo dhignay dabcan woon ay noqdeen telegram channel-kana soo dhigay dabcan horna u sheegay in telegram channel-ka soo dhigi doono ciyaaraha maadaama qofka mar walba muuqaal uu sameey karin oo muuqaalka waqti uu qaadanayo waxa ka yara fudud in telegram channel-ka post soo dhigo dabcan kaliya tactics-ka ama dabcan waxa aan markaa aan dhiganayo oo kaliya telegram channel-ka soo dhigo qofka hadii uu ku qanco dabcan uu ku qancay hadii uu soo qancino kuma soo qancin telegram channel-kayga Ibros Time ku qoran magaca YouTube ku qoran hadii calaamada dabcan Gmail Ibros C25 asir jingirisna dabcan akoonkayga user-kayga saxda direct oo heli kartaa soo marka waxa rajeenayaa in ciyaaraha focus ka saari doono maalmaha soo socdo maadaama still tournament ku jiro tournament kale oo game kale oo JX tournament-ga oo hadda kaalinta 73 kaga jiro halka shalay tolo 52 kaga jiray dhaqaajitaankaasna waxa keenay in la dhaqaajiyo in dabcan ka yara mashquulo boqol qof oo ugu horeysa dabcan waxay noqon doonaan winning-ka soo marka 73 ku jira next video iyada muuqaal ka soo sameyn doona waliba anigoo si fiican u sharaxayo muuqaal walba oo sameynaya waxa rabo in dadka ay wax ka bartaan hadda JX ka tartan waaye kaalinta kood qofka galo 7500 dollar consecutive oo qaadanaya taasina kuma xirna dabcan lacagtu ciyaaraya kaliya waa isbiin ama isbiiniska uu aruursanayo
soo marka boqol qofood ugu horeyso adiga konton wixii ka dambe 10 ilaa 20 wixii ka dambeeyo 250 euro camal ay qaadanayaan halka kaalinta ku 7500 kaalinta labaad 5000 oo doolar camal ay qaadanayaan muuqaal kala ku sharxi doona oo mar ina muuqaalkan ku dheeraado muuqaalkan muuqaal aad u xiiso badan waayo dabcan telegram channel-keygana hadii aad boqoto ciyaartii iyo qaabkii waxa uu soo dhigayo dhan waa arki kartaa marka waxaan rajeynayaa muuqaalkan wax badan ka fahantisid sidoo kale aad ka faa'iideysan doonto marka hadii aad daawashada ku wareejin channel-ka waxa xushmada kaaga codsanayna channel-ka subscribe sarto muuqaalkan aad like sarto saaxiibadan la wadaagto waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan